waxaa fila Hargeysa ka dhacay guddiga joogtada kulankiisii saddexaad waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa ajanduhu ahaa oo laga hadlayay waqti badan lagu qaatay waxa weeye dejinta ajandaha golaha shacabka ayaa aad looga hadlayay oo dib u noqosho dib u eegis lagu sameeyay mana aha wax mar kaliya ah waa wax mar walba duruufuhu soo socdaan loo bedelo oo kolba la eego wixii socon kara markaasi taas ba horta qodobka ugu weyn ahaa waxa kaloo laga hadlay oo isna ajandaha ahaa kooramka baarlamaanku inuu golaha shacabka aanu kooramka golaha shacabku in la ilaaliyo oo saacadii loogu talagalay la yimaado cid ka soo joogta timaado qofkii shaqo ku maqan iyo qofkii xanuun ku maqan mooyaane ay yimaadaan oo kooramka aad loo ilaasho ayaa ma aragtay qodobka labaad ahaa waxa kaloo guud ahaan laga hadlay xaaladda dalku uu hadda ku jiro guud ahaan baa laga hadlay oo guddi walba hay-adda qaabilsan tahay howlaheeda ayay ka hadashay waayo guddiga walba korjoogteen waxay ku leedahay ama 3-4 wasaaradood marka guddi walba yani marka lagu leeyahay xaaladda waddanka laga hadlaya haddii difaac tahay haddii nabadgelyo tahay haddii ay tahay dhaqaale haddii ay tahay horumarka kale dee wasaaradaha ku shaqale ee hoos yimaada ma aragtay korjoogteynta guddiyada kala duwan ayaa laga hadlayo la isxog wareysanayay marka maanta wuxuu ahaa kulan intaas saddexda ajanda ah waa mahadsantihiin Ibrahim Gudle Isxaaq